dad aan waxba u gelin oo maalinkaas laga yaabo inay ka soo horjeedeen ama ay ka shaqeynayaan in la dhibaateeyo amaanta waxay leeyihiin shariif soo dil waa wada naqaanaa waana qaraabada ways wada naqaanaa nimankii shalay la yidhi diyadana qaata labadana soo dila maanta inay madaxweyne xasan dhahan shariif soo dil ee asaguna ow yaalo horta waa doqonnimo horta waxaan rabaa inaan idiin sheego alla dilaa dhintay aniga nin hadda lagu handadayo waa lagu dila oo wax isaga bedelayan ma ihi waqtigayga ilaahaya subxaanahu wa tacaala waana ku qanacsana waxaan u soo istaagay oo shalay anoo intaan garaadkaygu ka yaryahay oo dadkaan aan aqoonin aan u soo istaagay maanta ma bedelaayo in sharطina ma aha ninka meesha jooga madaxweynaha meesha jooga inaan qaraabo nahay iyo inaanan qaraabo ahayn shalay aniga madaxweyne xasan madaxweyne farmaajo asaga xilka ku wareejiyay waa isla mucaaradayna inta madaxweyne farmaajo uu bi'iyey xasan tuman laabkeeduu bi'iyey dastuurkii uu bedelay wuxuu ka hor yimiday xurriyaadkii wuxuu mataqaanaa dhabar ka saartay arrintii doorashooyinka ayuu dhabar ka saartay wuxuu qaybiyey dalkii maanta waa la socoteen maamul goboleedadii xoogaa lagu wada dardaray waxaa ugu dambaysa galmudug aadaan uga xunaa waxa ka dhacay wax dadka soomaaliyeed iyo dadka reer galmudug u qalma ma aha in taladooda gacanta lagu maroojiyo oo shalayna la yidhaha doorashalaan iska jooga maantana wixii la rabo laga sameeyo talada madaxweyne xasan sheekh waa taasina soomaali ma anfacdo waxayna u baahan tahay in laga dhiidhiyo oo laga hor yimaado sidaas oo kale wixii ka dhacay koonfur galbeed dhiigaa daatay ilaa haddana dhiigaa daadanaya doorashadu siday u dhacdana waa ogna ayadana wixii la sugaayey iyo wixii la filaaya ma aha dadka soomaaliyeedna waxaan aaminsanaha wacyigoodu maanta waa buuxa aqoontii la rabana waa leeyihiin dad wax la socda oo dowladnimada fahamsanna waa yihiin sidaas waxaa la mid a hirshabeelle oo iyadana sidoo kale loogu socdo marka doorasho qora wadata oo beebo wadata oo ciidan amni wadata oo wadata ciidanka militariga doorasho ma aha doorashadii madaxweyne xasan sheekh laga sugaaya ma aha taas madaxweyne xasan wuxuu ka yimiday background tacliinuu ka yimiday macallinnimo ka yimiday inuu maanta qora qaato la celi waayo runtii waa nasiib darro oo aamino marka ma raba inaan ku sii dheeraado halkaas laakiin aniga sharaf iyo karaamo waxaa ii ah farxad waxaa ii ah beesha mudullood beelaha soomaaliyeed inay arrintaas fahamsan yihiin oo maanta wiilkayga cabdifataax oo meeshaan soo istaago oo aad arkayseen oo mataqaanaa qaraabo hoose la ah iyo abuukar oo soo joogso laba abuukar in soo joogsada saddexdiinaba aniga maanta cuqdadii geli kartaa horta ma jirto waxaysan ii gelaynin nin xukun ishaysta oo dulmi samaynaa inaan isqabanno arrin dabiiciya waaye inuu laaluush dhiibo oo dadka been u sheegana arrin dhici karta waaye laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa dadka kuwa qaraabada la ahaaya intay fahmeenaa dheheen maya waa kuwaan raggan ninkan wuxuu ka yimid yurub ninkaanna wuxuu ka yimiday imaaraadka raggaanna magaaladeena la jooga wiilkaanna 2 bil waa dhanta umaleynaa intaan isla joogno dadka la soo dhibaateeyey oo 40 maalmood 25 maalmood saldhigga yaaqshid lagu ciqaabayo ku jira marka aniga mudullood iyo Soomaaliya waxaan uga tegayaa halgamayaal dad dulmiga diida oo ka hortaga dulmiga ayaan uga tegaynaa ilaahay idankiisa marka kalsooniha lagu shaqeeyo malaka mawdka ilaahaya ha baqina cid aan halgamin oo aan dadaalinna meel ma gaarto Mandela meeqa sano xiray 27 sano markuu ka soo baxana maxuu noqday madaxweyne ilaa hadda nin lamida South Africana sooma marin Africana sooma marin marka waxaa la rabaa xaqa guuleysanaya xaq darradu waa dhumaysaa dadka magaceena lagu dulmiyay mudulada daanahay waa cudur daaranayna waxa ugu horeeya beesha murusade oo dhaqankeedii duubkeedii siyaasiyiinteedii mataqaana madaafic lagu garaacay daroon lagu garaacay
waxaa ka mid ah guddiga loo diray oo imaamkii mataqaana abgaal ama imaamkii mudullood iyo ugaaskii ay ka mid ahaayeen sanataro guddiga ay ka mid ahaayeen oo lagu garaacay mataqaanaa hubka culus lagu garaacay ilaaha ku mahadsan in uu usha dhexda ka qabtay oo dadkaas maanta ay nool yihiin oo ka mid ahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo saaxiibkeen oo aan wada shaqaynayna marka sida doctor barqadlo u sheegay mudullood maanta waxa laga rabo waxa waaye anigu waa dhaqanahay hooyashadiina waa aqbalay awalna wax iguma jirin laakiin inay garato beesha intaas oo iiga timaado waxay ii tahay farxad iyo sharaf iyo dhiirigelin hawsha mudullood u taalla waxa waaye inay dhaqaan beesha murugsade haddii odayaasha duubku ay dhaqi waayaan dhallinyaray haddaba dadka adinkaa ugu soo horrayseen isxilqaama wiilal iyo gabdho meeshaa joogtiin waxaa laydinka rabaa beesha murugsade inaad dhaqdiin waxaa laydinka rabaa imaamkiin inaad dhaqdiin waxaa laydinka rabaa ugaaskiin inaad dhaqdiin beeshaan waxay meeshaan ku soo gaarta Soomaali waa aamintay waxa lagu aaminana wanaag waaye xoog ma aha xoolo ma aha dadka inay ka fiican yihiin ma aha waxaa lagu aaminay dad nabadeed dad cadaalad ka shaqeeya dadka xumaanka hortaga inay yihiin marka waxaa la rabaa beeshu dhaqankii ay lahayd inay u laabato kaasaa iyada u fiican kaasaa Soomaali u fiican